kulankan qaabilaada ee gudoomiyaha golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu ku qaabilay safiirka UK u fadhiya Soomaaliya Ben Finter ayaa diiradda lagu saaray xaaladda guud ee dalka Soomaaliya midda dawlad goboleedyada gaar ahaan dadaalka ay dawladda federaalka Soomaaliya ka wado galmudug iyo arrimaha Jubbaland oo dhawaan doorashooyin ay ku soo wajahan yihiin. kulanka markuu soo gabagaboobay ayaa warbaahinta qaranka waxaa la hadlay agaasimaha xafiiska guddoonka golaha guddiyada iyo habmaamuuska aqalka sare Cabdinaasir Ibrahim Guuleed waxa uu sheegay in kulanku uu ahaa kulan si qoto dheer looga hadlay arrimaha Jubbaland iyo waliba galmudug. maanta ay tahay taariikhda 18 bisha 7 2019 gudoomiyaha golaha aqalka sare ayaa qaabilay safiirka UK u fadhiya Soomaaliya mudane Ben Finter. gudoomiyaha iyo safiirka ayaa ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin xaaladda guud ee dalka. gudoomiyaha iyo safiirka ayaa sidoo kale ka wada hadlay xaaladaha dawlad goboleedyada qaar sida dawlad goboleedka Jubbaland iyo dawlad goboleedka Galmudug oo la filayo dhawaan inay ka dhacdo doorasho. gudoomiyaha iyo safiirka ayaa sidoo kale iska wareystay shuruucda horyaalla golaha aqalka sare. kulanka ayaa guud ahaan ku soo dhamaaday jawi aad u wanaagsan oo isfahan ah. dawladda Ingiriiska ayaa hore u sheegtay inay kordhinayso taageerada ay siiso Soomaaliya iyo wada shaqaynta hay'adaha kala gedisan ee dawladda ee uu baarlamaanku uu ka mid yahay. Maxamed Nuur Maxamed Shariifka, warbaahinta qaranka, Muqdisho.